الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب الله سبحانه وتعالى ومهد اسكاله عليه ina waafajiyay ina soo gaarsiiyay ina siiyay bishan qiimaha badan ee Ramadaan ee aan ku jirno. bishan waa bil aad iyo aad u karaamo badan oo u baahan in laga faa'iideysto. waqtigeeduna waa yar yahay. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sheegay ayaaman macduudaat. allihii masaajidkan isugu keenay iyo beedkan barakaysan baa mahad iska leh. الله إنه نعمين la soo koobi karin baa mahad iska leh. Allah inaan ku shukrino danteena adduunyo mideena aakhira ku jirta. Allah subhanahu wa ta'ala hadaan ku shukrinay hadaan ku shukrinin ba isagu waa mahadsan yahay. isaga ismahadiye rabbi subhanahu wa ta'ala. alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. inta kadib walaalayaal waan jeclahay inaan idin la wadaago kelimada walaaluhu ay sheegeen ee tariiqul janna ama ma huwa tariiqul janna. wadada jannada loo maraayo maxay tahay? waxaan shaki ku jirin qof kasta oo nool, xitaa gaalada waxay doonayaan janno. qof walba wuxuu rabaa inuu janno galo. qofka muuminka ah goolkiisa iyo meesha uu rabo inuu gaadho, nicmada uu doonayo inuu xaqiijiyo, meesha uu habeenkii u soo jeedo, meesha uu quraanka u akhrinayo, salaada u tukanayo, soonka u soomayo, xajka u tagayo, cibaadooyinka kala duwan u samaysanayo, Allah subhanahu wa ta'ala awaamirtiga uu soo qaadanayo, qofku wixii la amray uu samaynayo, waxa uu doonayo inuu gaadho waa jannada rabbi subhanahu wa ta'ala. waxa uu ka walwalayo inuu waayo waa jannada. waxa uu jecel yahay inuu helo waa jannada. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa bifadlihi wa mannihi inuu nagu geeyo jannadiisa. waayo qofna kuma gala amalkiisa jannada in Allah subhanahu wa ta'ala isagu ku karaameeyo mooyaan. waxaan jeclahay marka inaan laba qodob ka hadlo. qodobka koobaad waxa weeye jannada lafteedu maxay tahay? wax yaraan ka tilmaana sifada ay jannadu leedahay. waayo shayga aad doonayso, raadinta aad raadinaysa inta ay la eg tahay waxay ku xidhan tahay inta aad ka taqaano. shaygu hadduu qiimo badan kula leeyahay, aqoonna aad u leedahay, aad baad u raadinaysaa, aad baad u dhaqaalaynaysaa. haddaad hayso gacantaada uu ku jiro, aad baad uga walwalaysaa, aad baad u jeceshahay. waad aragteen مثلا gabdhaha dahabka way jecel yihiin. dahabku waa shay qaali ah oo adduunka la intifaacsado. jacaylka ay jecel yihiin markuu gacantooda soo galay ay hayaan, alaabta kale meeshay dhigaan ma dhigaan. meel gooni ah ay dhigaan, si gooni ah u xanaaneeyaan, meel gooni ah lagu asturaa. waxaa la geliyaa boorso ama sanduuq baa la geliyaa, qasnad baa la sii geliyaa, weel yar oo kale la sii geliyaa. waa qiimaha uu la leeyahay weeye. idan jannada qiimaheeda markaan fahanno, markaan iyada garanno ayaan garan karnaa qiimaha ay leedahay.